halkaa dhigteen haabiil halkaa dhigteen ibraahim leyla xaggaa dhigteen cabdilaahi dheere xaggaa dhigteen sacuudi allaale xaggaa dhigteen cabdilaahi qasaal waar saaxiibadii aad wada geliseen dee idinkaa laayey adaana iska dilay innimadoodii maxay ku yaqaanaan anigu halkudhigayga sumad baan u samaynayaa aan kula doodo ila dood aan wada doodno haddii ay sun noqotay de horta intaa waxay dhaafsan ninkii haya ayaa horta cirka roob ku og intaa markaan ka gudbo maanta dhammaan ummadda reer somalilan waxay ka qaylinaysaa nabadgelyo daro waxay ka qaylinaysaa xaalad dagaal waxay ka qaylinaysaa dhibaato ku soo socota qof walibana wuu ooye maxaa laga ooyayaaba taala ma dhibaato markii hore jirtay baa soo noqotay mise mid cusub baa la wadaa horta tan maanta taagan waxa wadaa waa ururka waxaan leeyahay xusbiga kulmiye waana xusbil xaakimkii haddaba muxuu dhaqan u leeyahay wuxuu dhaqan u leeyahay nabaruu isagu tuurayo iyo shaabadu isagu sito inuu nin kale ku shaabadeeyo horta taa kaleefar buu ku yahay dagaalkii hore ee ka dhacay gobollada ee weliba ugu xooga badnaa burcaya hargeysa waxaa lagu shaabadeeyey qabiilada reer somalilan ka mid ah waxaa lagu shaabadeeyey qabiilka garxajis la yidhaahdo meel hadal la marin lahaa baa ay xabad la mariyey dhibaatadu waa maxay waa soomaali weyn baa qofkaasu yahay balse maanta waxaan idin fahansiinayaa soomaali weyn cidda ah ee shaabadda sidata ee ku laynaysaa dadaan lahayn oo aan u jeedin soomaali weyn fahanka taasu muxuu yahay dadka reer somalilan dib ha u eegeen nashqadda ama astaanta xusbiga kulmiye waa soomaali weyn waxaan taa ku caddaynayaa labada gacmood ee isku duuban midi waa somalilan ta kale xaggay nagaga timid bal imanka inteena halkan joogay waxaynu odhanaynaa kelmad baan idin tusayaa waxaan odhanayaa somalilan ha noolaato bal iga daba dhaha somalilan ha noolaato waayahay waa gacan qura gacantan labaad ee ku duubani xaggay ka timid horta shaabadda dadka lagu shaabadaynayo xusbiga kulmiya kaleefar buu ku yahay waa xusbi cidda hogaaminaysaa ay dhibaatadaa geysatay kow taa markaan ka gudbo dalka ayaa dhibaatada ka wada ma xusbiyada mucaaradkaa wada mise xusbiga kulmiya xusbulxaakimkaabaa wada dadka reer somalilan maanta shay baa laga iibinayaa hal shay baa laga iibinayaa waxaa laga iibinayaa xusbiyada mucaaradka yaa hawsha wada waxaan caddaynayaa kelmadda xusbiyada mucaaradku inaanay wax dhiba wadin sababtoo ah waa xusbiyo qaran waa xusbiyo damac siyaasadeed leh waa xusbiyo doonaya inay dalka qabsadaan shaabadda haddaba iyaga ku jirtaa maxay tahay ay weliba sharci iyo wanaag iyo sharaf iyo cod ku qabsadaan haddaba aan idin fahansiiyo reer somalilan dhibaatadu meeshii ku jirto miyaa aragteen xusbiga waddani oo hubsita xitaa baastoolada miyaa aragteen ucud oo hubaysan oo sidata
hub iyo gaadiid iyo baastoolad iyo wax qarxa jawaabtu waa maya faysal cariwaale baan la kaftamay gudoomiyahaas ayaa ugu hub weyn wuxuu sitaa bahal angoola oo xagga horena faraar yaroo soo godan ku leh xagga dambana ku leh laba faraar malaa xusbiga xusbul xaakimku malaa kaasuu hangoolkaasuu haystaa bn taas waa taa yaa haddaba wata yaa gardiida yaa golodiida yaa dagaalyahan hore ahaa yaa ummadda barakiciyadoo hub iyo rasaas hore soo riday yaa debadda uga saaray yaa jabhaddii asanam ee walaalo ahayd yaa gumaaday oo iska hor keenay waa saraakiisha maanta hogaaminaysa xusbiga kulmiye xusbulxaakimka hanjabaaddu xaggay ka imanaysa maxay ku imanaysaa hanjabaaddu waxay ku imanaysaa hubkii gacanta iyagaa ku haya lacagtiina iyagaa gacanta ku haya rasaastiina iyagaa gacanta ku haya shiidaalkiina iyagaa gacanta ku haya war horta ninka duulaanka ah ee gardiidka waa ninkaa ummadda reer somalilan taasaa u fahma waxaan uga gudbayaa anigu hore dhalooyinkan iyo waxaan ugama hadal nin snamtiina waan ahaa muddo dheerna waan ahaa dhallinyaradii waxbaratay ee ururkii snam ku biirtayna waan ahaa nin in badan soo noodgereeyey oo wax soo qorayna waan ahaa waxaan uga gudbayaa xusbiga kulmiye nafsi iyo naqsi wax la yidhahaa jira saaka nafsi baa ku buuxsamay sababta uu nafsigu ku buuxsamay waa maxay dhibaatada dalka ka dhacday saraakiishana hogaaminaysay xusbiga kulmiyaa hogaaminayay yay ku bilaabeen waxay ku bilaabeen madaxweynihii ugu horreeyey cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur halkay la mareen way ogtay inta dagaale ay ku rideen inta foolxumee uu geysteen waa la ogyahay yaa ku xigay waxaa ku xigay madaxweyne allaha u naxariisto labadoodaba maxamed ibraahim xaaji cigaal oo ahaa madaxweynihii alkumay waxa yaree maanta la doonayo in lagu cayaaro ama la burburiyo ama la khasaareeyo xaggii ka keeneen iyagu madaxweynahaasaa ku xigay isagoo soo taagan bay dagaal sokeeye geliyeen isagoo soo taagan bay dhibteed ogeydeen mariyeen isagoo soo taagan ayay dhiig hoos wadheen warota rag goon ina haysta waa ragga noocaasa yaa ku xigay waxaa ku xigay madaxweyne maanta wuu nool yahay aad iyo aadna waanu salaamaya daahir riyaale kaahin daahir riyaale kaahin dhibaataday ku sameeyeen cid lagu sameeyey ma jirto inta la gaadhay foolxumo iyo heer laga gaadhay caydii waa maqlayseen waana arkayseen ilaa iyo marwadiisa u dhaadhaceen ya ilaa marwadii madaxweynaha ayaa qof ducuufa u caayay kulmiya markuu intaa soo geystay maxaa ilaahay xilka u keenay war ilaahay wuu idinku imtixaanaya imtixaan baa lidin marnayay mucaarad xoog laa keenteen maxaa ku diideen in mucaaradad xoog le laydinkala hor yimaado mucaarad xoog leh in laydinkala hor yimaado maxaa ku diidanti waa hantida ummadda aad gacanta ku haysaa taana halkaasaan kaga gudbay qodobka kale aan u dhadhacaya weeyaan kulmiya horta muxuu dadka iyo dalka u qabta ka isweydiinta lihi waa taa maxaa u qabateen maanta waxaynu gallay 11 guuradii baynu gallay 11 sano ayaynu isu taagahay 11 kaa sano jaran kasta aynu soo marno
maxaa qabatee maxaa dadka ka iibinaysaa dadku ma dad aan caqli lahayn baa loo haystaa ma dadaan cilmi iyo waxgarad ahayn baa loo haystaa hantidii qaranku meeday koob iyo soddon jirka maanta mey xagguu horta jiraa ninkaa koob iyo soddon jirsaday xagguu jiraa xaggaa ku ogtii bar waa kii badu liqday bar waa kii magafa farahaw galay bar waa kuwii badda ku dhintay bar way ka haajireen xaggaa ku ogtii qodobka labaad hooy qaran uma haysaan oo hoo qaran uma haysaan oo xabaalo qaran uma haysaan awood ma liidin kama celin kartaan shirkadaha ay leerku kow ka tahay ma badbaadin kartaan inan cisbitaalka ku umalaysa waxaanaad dawladnimada ku sheeganaysaan waa maxay dantii guud meeday hantidii ummaddu lahayd meeday iskuulladii meeye caafimaadkii mee laydhkii mee biyii meeye hargeysaa caasimada 30 sannadoodba wax loogu dhaaminayay biyo booyada 30 sannadoodba been baa sheegaysa 30 sannadoodba been baa sheegaysa maxaa soo kordhay waa soo kordhisay markaan ku noqdo cisbitaalka miyuu jiraa cisbitaal dan guud oo aynu leenahay oo aan barayfad ahayn ma jiro cisbitaalada waaweyn iyo kuwa barayfadkee dadku leeyahay waa isku mid dadka marka ay cisbitaalka yimaadaan maanta waxaan ku nuxnuxsanayaa haweenka sharafta leh ee aan idin fahansiiyo dhashu waa min aayati fooshu waa min aayati maalin qura maalin keliya ayaa inanta aada cashuurta ka qaado ee laxooxda dubta ee hadhuurka ku karisa suuqa maalin bay kuu baahataa waa maalintay dhalasoo ubadka foorfayuujarka dalka kan qabsanaya cisbitaalka markay soo gaadho gobolka togdheer ama ka hargeysa ama ka ceerigaabo ama ka laascaanood ama ka boorame ay dawladdu leedahay 4 lacagood baa laga qaadaa 4 lacagood baa laga qaadaa midi waa sariirta midina waa baadhista midina waa dawada midina waa umursada danta guud aad dadka ku maaweelisaan waa maxay inanka aad maanta rajada iyo wanaagga ka sugaysaan iskuulka 4 lacagood baa laga qaadaa uulada waa laga qaadaa dugsiga dhexe waa laga qaadaa dugsiga sare waa laga qaadaa dugsiga jaamacadda waa laga qaadaa war danta guud aad dadka u haysaan waa maxay qodobka aan idinku soo gabagabaynaya anoo khudbadayda dhammaystiri doona insha allahi bismillaahi kariim qodobka aan idinku soo gabagabaynaya waa qodobka ictiraafka 30 sannadood baan ictiraaf doonayn maalintii u dambeysay waxa inoo suurta gashay oo waktigeediinu helnay dawladaha ka waaweyn ee ugu waaweyn ee maraykanku ka mid yahay inaynu nasiib u helnay maxaa ka soo dhaadhiciseen waa maxay waxaa ula tagteen waa maxay markaad sii socoteen waxaan ka garanayaa raggii halkaa marayey madaxweynaha kow muuse biixi cabdi wasiirka arrimaha dibadda wasiirka daaqiliga wasiirka warfaafinta markii aad tagteen sidaasaa sharaf u lahaydeen markii aad soo noqoteenna hadalkiibaa noo sideenoo noo keenteen maxaa dhacay 31 guuradii
waxaynu gallay dabaaldegii ugu weynaa waxaynu gallay kii ugu quruxda badnaa waxaynu gallay mid aynu u quuri weynay ummadda baahan inaynu intaa siino sax baan ahayd inaynu gallo waayo waxaynu muujinaynay inaanu gaadhnay heer aanu goonisutaag isu taagno maxaa ka dambeeyey dabaaldegii miyaan laba dabaaldegi somalilan ka dhicin kii qashinka xaggaa ku ogeyde degmada buuhoodle xaggaa ku ogeyde degmada tale xaggaa ku ogeyde degmada badhan xaggaa ku ogeyde maantana waxaa u ba'aysaa dagaal waxaa u ba'aysaan inaad dagaal ridaan horta dagaalka ammaanta ridaysaan esan ku ridi maysaan esanam waa iska wax yarba tirisa waxaa ku ridaysaan idinkaana cunay esanam idinkaanay saaxiib idan lahayn balaan idin xasuusiyo halkaa dhigteen haabiil halkaa dhigteen ibraahim leyla xaggaa dhigteen cabdillaahi dheere xaggaa dhigteen sacuudi allaale xaggaa dhigteen cabdillaahi qasaal waar saaxiibadii aad wadageliseen dee idinkaa laayey adaana iska dilay innimadoodii maxay ku yaqaanaan carruurtii iyagu dhaleen maxay ku yaqaanaan muusena madaxweyne u yaqaanaan maxamed kahina wasiirka daaqiliga u yaqaanaan maantana yararka iyagu sii dhaleen baad ku soo socda waxaan idin leeyahay dalka dhibaataa geliseen haddaa maanta dagaal ku baaqdeenna idinkaa cirka ku rogroog anigu waxaan idin leeyahay feejigadu waa idinka xunta dadnimaduna waa idinka xunta esannimaduna waa idinka xunta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu